بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لهيجا قاليجا soo dhawaada meel walba adduunka daafacida ka joogtaan. waa mar kale iyo walaashin farxiyo oo maanta idin wado muuqaal kale cusub. ugu horeyn haddii nagu cusub tahay channelka waxaan ku leeyahay gacmo furan iyo qalbi wanaagsan. kusoo dhawow, subscribe iyo like ta naga baqiilin, ha hilmaamin fadlan gambaleelka furo si mar walba video cusub soo saaro si dhaqsi u heshiin. asxaabta qurux badan horena la joogi jirtay, thank you baa idin leeyahay. jasaakumullahu khairan. farxad iyo caafimaad ku noolaada meel walbo adduunka daafacida ka joogtaan. waxaan kasoo tuuranaynaa casho yar oo qurux badan oo inaba caadeen oo macaankeeda laga sheekeyn karin. kusoo dhawow asxaabteeda. meesha waxaan ku haystaa waa hilib chicken oo 1 kiilo ah. waan ku goynayaa hadhow markaan mariyo spices yaasha. waxaan rabaa inaad dhexda iyo lafta ka galo marka insha Allah la socod wanaagsan. waa kasa maasha Allah, waan soo dhameeyay. waxaan ku miirayaa liin jeex si fiican ayaan u miirayaa. marka intaas ka bacdi waxaan marinayaa insha Allah waxaan ku yiraahdaa cusbo dhankaada ay ku xiran tahay. waa kasa cusbada waa hal nus qaado waaye iyo paprika nus qaado waaye. marka si fiican ay isku dhex gelinayaa. intaas ka bacdi waan daboolaya xoogaho 30 minutes camal ameel iska dhigaya insha Allah. dhinaca kale asxaabteeda baaquliga ayaan soo qaatay. waxaan kusoo shubay xoogo oo yogurt plainka. waxaan soo tumay xoogo sanjabiil iyo toon hal qaado, xoogo huruud black pepper iyo xoogo oo maxaan ku yiraahdaa paprika. xawaaji Allah idaasid waa ku darsan kartaa. xoogo 2 qaado camal oo saliida iyo liin aan ku meeraya. marka waa isku dhex gelinaya si fiican. waxaan rajeynayaa inay fahanteen. waa kasa yogurtka ayaan geb kusoo siiyey. waa si fiican isku qasaya. marka insha Allah waxaan dhigayaa 1 saacadood ka bacdi ayaa isku soo laabanayna insha Allah. ila socod wanaagsan asxaabta qurux badan. digsiga usoo laabtay waan gedinayaa dhinaca kaleeto. waxaan soo diyaarsaday asxaabteyda meeshan xoogo yogurt iyo food color iyo maxaan ku yiraahdaa xawaajiyaal kala duwan ayaa si fiican u marin doona insha Allah. chickenka optional waaye, basasha iyo barbarooni haddaa rabin oo iska dhaafi kartaa. marka waa kasa si fiican ayaa u xiraya foilka and make sure si fiican afka ka xirtid maasha Allah. waa kasa ovenkan gelinaya. dhinaca kale asxaabteeda biyaha dabka ii saaran waa ii soo kartay. xoogo cusbo ayaan kusoo darsanaya. waxaan karinaynaa insha Allah baradho oo chips laga sameeyay insha Allah. marka xoogo waa ii soo kartay. biyahan qabow waaye, ha iisoo qabowdo. marka waan ka miiraa biyahanayto. markaan ka miiro ka bacdi waxaan sameynayaa waan qalajinayaa baradhada.
markaan qalajiyo kadib waxaan marin doonaa insha allah corn flour ama warango saa u taqaanid. waa kasa 2 qaado camal ayaa isticmaali doona warango ama corn flour. wuxuu ka dhigayaa hadhow crunchy oo macaan badan maasha allah. si fiican ayaa isku dhexgelinaya. dabka waxaa ii saaran saliida waa ii soo kululaatay. inta ramadaan la gaarin insha allah ka faa'iideysta aydin leeyahay asxaabta qurux badan. waa ii soo kartay waa kasoo ka saaraya dabka. inta waxaan kusoo diyaarsanayaa 2 qaado camal oo mayonnaise iyo ketchup oo tomato waa kasa maasha allah tabaaraka raxmaan. saa ujeedaan indhihiina idin macaline chicken keena qurux badan tandoori chicken aa la dhahaa faarahan si qurux badan kusoo baxay. dhinaca kale waxaan soo diyaarsaday chips oo xoogo food colour soo mariyay. waa kasa maasha allah tabaaraka raxmaan. ka faa'iideysi wacan baa idin leeyahay asxaabta qurux badan. chipsigeena qurux badan waa kasa. French fries al dhahaa faarahaneeto waa crunchy saa ujeedaan maasha allah macaankada laga sheekin karin. chicken keenana qurux badan saan kusoo baxay. kaale iska arag waxaan ku dhahay caadi ma ahan tandoori chicken al dhahaa faarahaneeto. inta soonka la gaarin ka faa'iideyso. dee waa kasa channelka kor u qaada oo meel dheer gaarsiiya oo asxaabtina u sheegareeya insha allahu tacaala idinko raali ah. inta haysanin rabbiyow si inta haysatan ilaahu barakeey. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka hesheen muuqaalkan maanta. ka faa'iideysi wacan baa idin leeyahay asxaabtayda qurux badan. waa kasa cashadeena qurux badan saan kusoo baxay. muuqaalkan haddaan meesha kusoo gaarteen waxaa idinka codsanaa inaad like-ta iyo subscribe-ta naga baqiilin. ilaa waqti kale ku kulmi doono insha allahu tacaala. waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.